waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Soomaaliya Scalping Trading. Sidaad u jeedaan waa Euro USD halka saac time frame-ka. Waxaana rabay in aan buy galo sidaad u jeedaan moving average-yada 250 maalmood halkaasaad u jeedaan meesha falaarta saaran tahay way isku soo dhawaadeen. Ani waxaan aaminsanahay suuqa maanta volume badan baa soo geli doona. Waxaan rajeynayaa in aan buy galno anagoo sugayna inta candlekaas uu ka dhamaanayo. Daqiiqadaha harsan waa ujeedaanan filaa 5 daqiiqo. Marka halkaasaan rabnaa inaan go-aanka ka qaadano marba sida uu noqdo. Waan aaminsanahay maanta in volume badan ay suuqa soo gelayso ugu yaraan 50 pip uu soconayo. Marka ishaa lagu hayo hana laga faa'iidaysto. Sidaad u jeedaan koley take profit-ka markasta waxaa lagu cabirtaa Fibonacci-ga. Sidaa u jeedaan Euro USD wuxuu isku dayayaa inuu jebiyo meesha xariiqinta ah. Meeshaasoo meel adag ah oo dhowr jeer ay soo galeen aggressive buyer. Dhinaca fundamentalka laftigiisa waa inaad la socotaan oo ka warhaysaan akhbaaraadka soo baxay. Akhbaaraadkii Asia maxaa soo baxay suuqii Asia markuu xalay funaa. Taas adoo kasoo cabir qaadanaya waxaad isku daydaa akhbaaraadka soo baxaya suuqa Yurub halkaas kala soo baxa trade-yada. Koley qofna ma rabo wadan inuu maal gashto xilligan aan meel fiican xaaladiisu ay marin ama wax soo saarkiisu yaryahay. Marka waxaa loo baahan yahay central bankiyada in qof kasta uu ka warhayo si uu u go'aansado in uu trade qaato. Waxaan umaleynaa daqiiqadii way sii dhamaan rabaan 3 daqiiqo. Meeshan waxaad ku arkaysaan waa 5 star setup. boqolkiiba 70 ku guuleysanaa trade-yada. waana wax muhiim ah sabab markaa in leeyahay mar walba sabab u trade gareeya waxa waaye meeshaad kasoo tilaabo qaadanaysaan ama go-aanka kasoo qaadanaysaan waa in ay sababi ka dambeysaa why aad trade-kan u geleysaan. Marka sidaas ha loola socdo insha Allah. Waxaan rajeynayaa in daqiiqadaas soo socdo uu buy galo. Hadduu geli waayana waan iska dhaafeynaa. Setup kale aan sameyneynaa ama lacagaha kale baan u raadineynaa. Marka insha Allah lagu hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.